بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابديال كسو دباada qodobada wararka ugu doorkano janalkeena Daily TV waxaana ka mid noqonaya al-shabaab oo soo bandhigay odayaal horle oo cafis soo weydiistay gudoomiyaha Shabeellaha Hoose oo ku xiran magaalada Marka Daacish oo dagaalyahano cusub ku soo bandhigtay gobolka Bari Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo amisom la xiriiriyay xayiraadii la saaray madaxweyne Shariif Djibouti oo ka digtay arrin halis ah oo Soomaaliya uga soo socoto dhanka Kenya dawladda Soomaaliya oo si buuxda u joojisay dhammaan duulimaadyadii Kismaayo Sheekh Shariif oo weerar culus ku qaaday farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr iyo al-shabaab oo soo bandhigay sabiradii weerarkii Ceelsaniini daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door korooraa haatana intaan u gudagalnay iyagoo faahfaahsan waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan channelka subscribe saartaan sidoo kale gambaleelka aad furataan si aad ugu mid noqoto daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatana u diyaar garooba qodobadii oo faahfaahsan al-shabaab ayaa soo bandhigay sabiradii weerarkii Ceelsaniini xarakada al-shabaab oo shalay weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada dawladda ku lahaayeen deegaanka Ceelsaniini ayaa si degdeg ah u soo bandhigay sabirada iyo dhibaatada ka dhalatay weerarkaasi deegaanka Ceelsaniini oo u dhaxeeyo Afgooye iyo Marka ayaa waxa ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab waxaana shalay dawladda sheegtay in ay iska difaacday weerarkaasi balse al-shabaab ayaa soo bandhigay natiijo midaasi ka duwan oo muujinayso inay la wareegeen saldhigga sidoo kalena ay qaateen hub iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ciidamada dawladda sidoo kale al-shabaab ayaa soo bandhigtay qaar ka tirsan askartii shalay weerarkaasi looga dilay ciidamada dawladda waxaana sabirada ka soo dhex muuqday askari nool oo ay al-shabaab sheegeen inay ku qabteen dagaalkaasi weerarka ayaa ahaa mid ku bilowday gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu furtay afaafka hore ee xirada waxaana wixii ka dambeeyay xilligaasi dhacay dagaal foolkafool ahaa oo dagaalamayaasha al-shabaab dhowr jiho ay kaga qaadeen xiradaasi xisbiga UPD ayaa digniin ka soo saaray xayiraadii uu farmaajo saaray Sheekh Shariif xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD ayaa war-saxaafadeed xasaasi ah ka soo saaray xayiraadii shalay ay dawladda farmaajo saartay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed kaasoo loo diiday in uu u duulo magaalada Kismaayo caasimadda Jubbaland shalay oo taariikhdu ahayd 22 Sebtembar 2019 waxaa laga baajiyay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo kadib markii amar ka soo baxay hay'adda duulista hawada lagu hakiyay duulimaadkii ay raaci lahaayeen isaga iyo wafdigiisu xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD wuxuu si kulul u cambaariyay falka foosha xun waxaanu ka digaynaa in hay'adaha qaran ee bixiya adeega guud loo isticmaalo dano gaar ah oo aanan waafaqsaneyn dastuurka kumeel gaarka ah sida ku cad qodobka 33 oo waajib yeelanaya in go'aamada maamulka ee dalku ay ahaadaan kuwo ku dhisan sharci maalgal ah go'aan ka gaaristoodana loo maray hanaan caadil ah ayaa lagu yiri warka qoraalka ay ka soo baxay xisbigaasi xisbigu wuxuu sidaasi si la mid ah u cambaareynaya guud ahaan ku xadgudubka sharafta iyo karaamada muwaadin kasta gaar ahaan dadka tixgelinta iyo maamuuska qaran ku leh bulshada xuquuqdaas oo ay ku tunteen kuwii loo igmaday inay ilaaliyaan oo awoodii dawladnimo ugu takrifalay si baalmarsan qodobka 12aad firqadiisa koowaad ee dastuurka oo ku waajib yeelaya madaxda hay'adaha qaranka dhowrista xuquuqda asaasiga ah ee muwaadiniinta xisbigu wuxuu sidoo kale cambaareynaya ku xadgudubka xuquuqda asaasiga ah ee muwaadin kasta taas oo ka hor imaanaysa qodobka 20aad firqadiisa koowaad oo dhammaan qaadaysa xuriyadda ka qaybgalka iyo abaabulka kulamada iyo sidoo kale qodobka 21aad firqadiisa koowaad oo u xaq siinaysa muwaadin kasta inuu si xur ah ugu dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo xisbigu wuxuu hoosta ka xariiqayaa in dhacdadan shalay ay marqaati cad u tahay sida xukuumaddu uga tumanayso xuriyadaha lama taabtaanka ah ee dastuurka damaanad qaaday waxaanu xusuusinaynaa madaxda sarsare ee dalka in aan dib loogu dulqaadan karin cadaadiska ku xadgudubka dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala
xisbigu wuxuu ugu dambeyn ku baaqayaa in saamileyda siyaasadeed ay iskugu yimaadaan shir degdeg ah oo looga tashanayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda dastuurka. sidoo kale xisbigu wuxuu ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed in ay taageero dhan walba ah la garab istaagaan dadaalada loo gelin doono samato bixinta dimuqraadiyadda iyo curdinka ah ee dalkeena ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay xisbiga Xasan Sheekh Shariif ayaa weerar culus ku qaaday Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shir jiraahid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay is-hor istaagii shalay lagu sameeyay xilli uu ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. ugu horeyn Sheekh Shariif ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay baal marayaan shuruucda dalka halkii laga rabay inay ilaaliyaan dastuurka u yaala Soomaaliya. inta jeer ee madaxda dowladdu garab mareen sharciga u yaala dalka xisaab ma leh ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya. sidoo kale wuxuu tilmaamay in isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay u sameeyeen sharciga isla markaana haddii uu ka duuli karo garoonka uu isna ka dhoofi karo taasna ay xaq u siinayso muwaadinimadiisa sida uu hadalka u dhigay. waxa kale uu intaasi ku daray in dowladdii ku meel gaarka ahayd isla markaana uu madaxweynaha ka ahaa ay dadaal badan ku bixisay garoonka Aadan Cadde kuna guuleystay dhowr sano kadib in ugu yaraan diyaaraduhu ay ka soo degaan garoonka ay intaas iiga soo gashay haddii la ii ogolaan waayay yaa loo ogolaanayaa ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Sheekh Shariif ayaa tilmaamay in hay-adaha dowladda aysan madax banaaneen sida baarlamaanka oo uu tilmaamay in uusan lahayn awoodii looga baahnaa. sidoo kale wuxuu ku dhaliilay dowladda amniga guud dhaqaalaha iyo dastuurka oo uu sheegay in dhammaan ay ka gaabisay taasi bedelkeedna uu xusay in xoogga ay saartay dagaalka ay kula jirto siyaasiyiinta mucaaradka. Shariif ayaa sidoo kale su'aal geliyay sida mustaqbalka Farmaajo iyo Khayre loogu aamini karo Soomaaliya gaar ahaan doorashada 2020 maadaama buu yiri ay iyagu hareer marayaan shuruucda Soomaaliya. ugu dambeyn wuxuu ka hadlay xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isagoona sheegay inuusan jirin maamul madax bannaan oo xiriir la leh dowladda dhexe. Jubbaland isma hayaan, Puntland isma hayaan, Galmudug waxa ka socda waan ognahay, Hirshabeelle waxa ka socda waan ognahay, Bay iyo Bakool waxa ka dhacay waan ognahay ayuu mar kale yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya. xiisada dowladda iyo Sheekh Shariif ayaa ka dhalatay kadib markii shalay loo diiday inuu u duulo Kismaayo oo uu doonayay inuu uga qayb galo caleemasaarka Axmed Madoobe. odayaasha iyo duubabka beesha uu ka soo jeedo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku booqday gurigiisa kadib dhacdadii lagu xiray Imaam Maxamed Yuusuf Cali oo ah imaamka beelaha Mudulood iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa u muujiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed sida ay uga xun yihiin talaabadii ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu diiday inuu u duulo magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynihii dib loo doortay Axmed Madoobe. odayaasha ayaa xal ahaan ugu tagay Sheekh Shariif ayaa ka codsaday in xaaladda la dejiyo isla markaasna ay iyaga dowladda federaalka Soomaaliya kala xaajoon doonaan dhacdadan. imaamka iyo ugaaska maanta u tagay Sheekh Shariif ayaa la rumaysan yahay inay daacad u yihiin dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo taasoo bil kasta siiso lacago. dadka falanqeeyo siyaasadda ayaa aaminsan inay ahayd in ugaaska iyo imaamka ay si cad u muujiyaan mowqifkooda ku aadan dhacdadan isla markaana ay fariin cad u diraan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. waxa laga sugayay inay saxaafadda la hadlaan isla markaana ay si cad uga hadlaan kiiskan taagan iyo cidda ka dambeysay iyo sida laga yeelayo arrimaha noocan oo kale ah oo ay dhowr jeer ku dhaqaaqday dowladda Soomaaliya. shalay ayay ahayd markii xubno uu hogaaminayay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow ay Sheekh Shariif ugu tageen gurigiisa iyadoona u waday raaligelin balse Sheekh Shariif ayaa si cad ugu sheegay inuusan intaan ku qancin karin balse loo baahan yahay inay dowladda raaligelin rasmi ah ka bixiso. dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay qaadayso tallaabooyin ka baxsan sharciga oo ka dhan ah maamul goboleedyada.
xasan ayaa cabsi ka qaba in xisbigiisa UPD uu lacag ku bixiyo loolanka galmudug ayaa u diyaar garoobaysa in ay doorato madaxweynihii labaad ayaa waxaa ka furmay loolan adag oo la aaminsan yahay in natiijada ka soo baxda ay go'aamin doonto rajada mucaaradka ee doorashada 2020 waxaana si rasmi ah u bilowday ololaha doorashada iyadoo oo musharaxiinta ugu cadcad ay ku dhawaaqeen doonistooda mucaaradka dowladda ayaa ku duulaya labada musharax ee kala ah Cabdiraxmaan Odowa iyo Kamaal Guutaale halka muxaafadkuna ay riixayaan Axmed Qoorqoor waxaana intaasi dheer musharaxiin siyaasad qabow oo tartanka qayb ka ah kuwaas oo aanan la saadaalin karin dhinaca ay u dhamaan doonaan musharax Cabdiraxmaan Odowa oo Muqdisho kaga dhawaaqay rabitaankiisa ayaa tagay Dhuusamareeb oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay siyaasadda oo ku abtirsada xisbiga UPD ayaa safar saxaafadda laga qariyay ugu soo laabtay Muqdisho iyadoo oo qaarkood u sii gudbeen Turkiga laakiin Odowa oo aan wali warbaahinta ka soo muuqan ayaa la rumaysan yahay inuu Muqdisho joogo wali waxa ay u muuqataa musharax Odowa uu lumin doono taageerayaashiisii oo ay biirin doonaan garabyada kale ee xifaaltanka ku jira Kamaal Guutaale ayaa isna musharax ah Kamaal Guutaale ayaana ah musharax aan la dhayalsan karin oo mucaarad ah ayaa Muqdisho ugu dhawaaqay musharaxnimadiisa waxa uuna u gudbay Dhuusamareeb munaasabadiisa shaacinta iyo soo dhaweynta tagista Dhuusamareeb kuma uusan soo bandhigin garbo culus oo saameyn ku leh siyaasadda maanta laakiin waxa uu ku dhiiran yahay in uu sii wato ololihiisa Qoorqoor oo Muqdisho iyo Dhuusamareeb ku soo bandhigay dhoolatus indhaha soo jiitay sidoo kalena noqday musharaxa ololaha xoogan tan iyo markii uu ku dhawaaqay hankiisa siyaasiyiin saameyn xoogan ku leh siyaasadda ganacsato ay soo wada shaqeeyeen odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Galmudug ka tirsan ayaa si mid ah u riixaya qorshaha uu ku maamuli lahaa Galmudug 4 sano ee soo socota Qoorqoor haddii dhinacyada mucaaradka aysan wax ka bedelin siyaasadda ay ku wajahayaan ololaha doorasho oo aysan la imaan hab u sahli kara in ay tartan adag geli karaan waxa ay u muuqataa ciyaar natiijadeeda la og yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Amison la xiriiriyay xayiraadii la saaray madaxweyne Shariif gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si adag uga hadlay is-hortaagii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo shalay laga celiyay isagoona ku sii jeeday Kismaayo si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka ee Axmed Madoobe Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay inuu si xoogan u cambaareynayo sida loola dhaqmay Shariif Sheekh Axmed oo uu sheegay in halgankiisa uu ka soo bilowday soo deynta wiil ardaydiisa ka mid ah oo xuriyadiisa laga qaaday isla markaana ay maanta joogto in isagii xuriyadda socodka laga qaado sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaas raaciyay in wixii dalka ka dhacay mas'uuliyadooda qaadayso Amisom maadaama ay ka aamusan tahay waxa dhacaya iyadoo la adeegsanayo awoodeeda dowladda Soomaaliya ayaa si buuxda u joojisay dhammaan duulimaadyadii Kismaayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa goordhow ku dhawaaqday in muddo 3 maalin ah la joojiyay dhammaan duulimaadyadii tagi jiray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maamulka hay'adda duulista hawada Soomaaliya ayaa shaaciyay in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 23 Sebtembar ilaa 26 bishan la hakiyay dhammaan diyaaradaha tagaya ama ka imaanaya magaaladaasi sidoo kale hay'adda ayaa go'aankan ku wargelisay shirkadaha duulimaadyada dalka garoonka magaalada Kismaayo iyo kuwa Muqdisho arrintan ayaa waxa ay dowladda kaga gol leedahay sidii ay u baajin lahayd mas'uuliyiin ka qayb galaya xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe dowladda dhexe ayaa gabi ahaanba ka hortimid doorashadii dib loogu doortay madaxweynaha Jubbaland taas oo dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaasi maalintii shalay ay ahayd markii dowladda dhexe wafdi uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ay u diiday in ay u duulaan dhanka magaalada Kismaayo Sheekh Shariif ayaa ujeedkiisa wuxuu ahaa inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland daawadayaal guud ahaan halkan ayaa ku soo gabagabeynaya warkii aad kala socoteen channelkeena Daynila TV inta aan warkan xiga ku kulmi doono waxaan idinka dalbanaynaa inaad channelka subscribe saartaan sidoo kale gambaleelka aad furataan waa haddii aad ka mid tahay daawadayaasha nagu cusub ee maanta nagu soo biiray waxaadna noqon doontaa daawadaha ugu horeeya ee wararkeena ay u soo dhacaan inta aan warkan xiga ku kulmi doono anagoo isku duuban bahdayaga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh